Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaa idinka sheekeynayaa arrin ama sheeko yar oo maanta i qabsatay oo runtii laakiin xigmad weyn iyo maaragtay faa'iido weyn ku jirto. Waxay ahayd saacadda 8 saac. Inta badan aa ogtihiin dadka inay guryahooda joogaan, inay hurdaan, inay nasanayaan. Waxaa dhacday aniga waxaa joogay meel guri banaankiisa aan fadhiyey. Ilaahay markiis dabeelaa dhacaysay madaxan hoos aadistay marka. Nin adigu da'diisa 35 ilaa 32 ah qiyaas ahaan ayaa dhankan ka yimid isoo i kor taagan oo ila hadlaaya arkay marka. Markaasuu igu dhahay saaxiib kurbada aniga i hayso oo guriga saacaddan iga soo bixisay adigu guriga mee kaa soo bixisay. Markaasaan ku dhahay maxaa kugu dhacay saaxiib? Wuxuu igu dhahay saaxiib anigu shirkad korontaan u shaqeeyaa 7 saaca laysoo fasaxaa 1 saac aan nastaa 1 saac kadibna shaqadan dib ugu noqdaa. Subaxii oo dhan wuxuu dhahay buugaan wataa saacadahan wax soo qoraa. Waxaa dhacduu dhahay gurigaan tagay. Wuxuu dhahay 10 daqiiqaan gurigayga joogay halkaa inaan ku nasto ka qadeeyo aan sugaayay. Qayle iyo buuq ayaa maaragtay igu soo dhashay. Sidaasaa marka hadda u soo baxay. Waxaan rabaa waqtiga yar ee ka dhiman inaan mashaajidka aado oo indho gududsada si shaqadii aan u galo. Ku dhahay walaal anigu maya. Anigu meeshaanaan fadhiyey qofaan ku sugaayay. Dabeeshaa indhaha iga gashay saasaan caradaan maaragtay wejiga kaga dabooshay. Laakiin ilaahay ha kaa qaado kurbada. Xaaskaagane ilaahay ha fahansiiyo ayna xaqaa ku leedahay. Markaasuu igu dhahay wallaahi rafaadkan iyo dhibaatadan ida darteedaan u marayaa. Laakiin halaha yaraan guriga joogo waa ku nasan lahay. Marka waxaan jeclaystay inaan ila wadaago gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay xaasaska ah. Waxaa laga yaabaa ragga qaar dhibaato iyo rafaad idin maraayo. Laakiin idinka aadan fahmi karin. Wuxuu yidhi subaxii 1 saac saan shaqada u gado oo guri walba aan u tagaayo quruxdan ku soconaayo 500 oo guriga laga rabaayo u dhahay. Markaan guriga imaadan dhibaatada aan arkaayo maxaa yidhi bulshada la wadaag ha la isku naxariisto soo ilaahay noogu naxariisto ha la isku naxariisto.